agaasimaha waaxda gaadiidka badda ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland Jaamac Maxamed Cabdi iyo agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta jidadka ee Somaliland Maxamed Axmed Sugaal oo ay weheliyaan isudwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Sheekh Xasan Axmed Cabdalle iyo xogayaha gobolka Sanaag Maxamed Cabdullaahi Cabdi ayaa gaaray degmada Maydh ee xeebta gobolka Sanaag ujeedada safarka mas'uuliyiinta ka socday wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ayaa la xiriiray fulinta wareegto ay wasaaradoodu ku soo rogtay gaadiidka dhanka badda ee Somaliland waxaana ay halkaasi kulamo kula qaateen mas'uuliyiinta maamulka degmada Maydh kulamadaasi kadibna waxa warbaahintaasi wada jir ula hadlay xogayaha fulinta degmada Maydh Saciid Cali Maxamuud iyo taliyaha ciidanka badda ee gobolka Sanaag isudwaha wasaaradda horumarinta jidadka iyo xogayaha gobolka Sanaag agaasimayaasha wasaaradda gaadiidka dhammaan waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta magaalo xeebeedan Maydh iyadoo ay u yimaadeen hawl shaqo duty trip ay ku jiraan waxaanu si dhab ah isula fahanay ujeedada safarkooda oo ahayd maadaama wasaaraddan gaadiidka hadda la magacaabay ay tahay wasaarad cusub in maamul daadejin lagu sameeyo gobolada iyo degmooyinka sidii ay laamaha kale ee dawladda wada shaqayn lahaayeen runtii aad baan ugu soo dhaweynaynaa maamul daadejinta ka wadaan gobolada aanu kala shaqeyno xagga xeebaha badda waxaan la ku soo dhawaada safarkan soo galnay oo aanu ku soo soconay degmada Maydh degmadaas oo si fiican loo ku soo dhameeyay hawshii aanu soconay iyo magaranaysaa ayna noo si fiican ugu magaranaysaa dhamaatay waxaan halkan magaranaysaa mahad uga jeedinaynaa xogayaha degmada taliyayaasha ciidanka dhammaan maamulihii gaadiidka badda dhammaan dadweynaha degmada Maydh iyo dhammaan hay'adihii aan u soconay ee wasaaradihii sida fiican hawsha nooga qayb galay wasaaradda maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga immigration-ka booliska taliyayaasha ciidanka dhammaan si fiican bay hawshaas u dhamaatay waxa Maydh maanta ku sugan oo safarkayga nagula weheliyay oo ilaa Hargeysa ka soo kicitay madax heer qaran ah oo laba agaasime waaxeeda oo hawlo shaqo u socday iyo wareegtooyin cusub oo wasaaraddu ay soo saartay kuwaas oo daaran in sidii xeebta looga wada shaqayn lahaa iyo laamaha dawladda iyo institutionsku iyo cidii hawl shaqeedka waaxyo ka ah oo qayb ka ah aad iyo aad baan hawshii hadday tahay degmada iyo hadday tahay heer gobolba aanu isula fahanay intaasi kadibna waxaa dhankooda halkaasi ay mas'uuliyiintan soo gaadhay degmada Maydh ay sharaxaad ka bixiyeen ujeedka safarka ay ku yimaadeen magaalo xeebeedda Maydh safarkani wuxuu daaranaa laba qodob kormeer iyo dardargelin shaqada iyo shaqaalaha ah si aanu ogaano oo aanu daadejino maamul daadejin ugu sameeyno shaqada wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadku ay ugu hayso qaranka ee uga mas'uulka tahay ilaa heer gobol ilaa heer degmo tanna waxay ka mid tahay shaqooyinkaygaas routiinka ee aanu qaranka u hayno marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadweynaha degmada Maydh wasaaradda gaadiidku annagoo laba agaasimaha isduuhii gobolka nala socdo waxaanu halkan u nimi inaanu dardargelino wareegtadii wasaaradda gaadiidku ka soo saartay gaadiidka soo galaya baddeenna wareegtadaasi waxay khusaysay sidii gaadiidka baddeenna soo galaya loo kantarooli lahaa shuruudaha ku xidhan hay'ad kasta oo ku shaqada la baddana ilaa permit iyo ogolaansho laga helo hadday kalluumaysi tahay hadday dalxiis tahay hadday macdano baadhis iyo wax kale khuseeyo tahay inaan gaadiid iman karin badda Somaliland aan ogolaansho ka haysan hay'adda ay khusayso Cabdiraxmaan Maxamed Xidig telefishinka caalamiga ee Real TV Ceeri Gabo.